شبكة قمم إعلامية. biyuhu waa waxa ugu jilicsan haddana waxay dilaaciyaan dhulka waxayna dhaqaajiyaan dhagxaan waxay deji karaan markab. tani waxay si cad ku tusaysaa mabda'a dabacsanaan iyo deganaan aad kaga guulaysan karto wax aad u adag. sawirku ma aha ilaa waqti aad sugi karto balse waa sida wanaagsan aad u dhaqmi karto inta aad sugayso. marnaba ha is oran way ka daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa helimaysid. wax wanaagsan ayaa u muuqan kara xumaan haddii dhanka mugdiga ah ka eegto. wax xun ayaa u muuqan kara wax wanaagsan haddii aad ka eegto dhanka iftiinka ah. sida dadku wax u arko ama wax u cabiro ayaa kala duwan. ha ka cabsan hana isdhiibin. halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad berri u baahan tahay. dhib kasta oo ku soo martay waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo. qofna intuu qabrigaaga soo istaago ma oranayo wuxuu wadan jiray moobilo qaali ah. waxay lahayd sawirro qurux badan. wuxuu lahaa guri weyn. waxay kaxaysan jirtay gaari sare. laakiin inta god yar lagu geliyo ayaa lagaa soo dhaqaajinayaa. keliya waxaa kuu haraya camalkaagii adduun. شبكة قمم إعلامية. ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسماء جاءكم. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. waxaan rajaynayaa wax badan inay kaaga baxeen muddada aad daawanaysay. fadlan subscribe saar barteena youtube-ka SYC Media. mahadsanid tan iyo kulanti dambe. وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة تجيئني مسرعة.